بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogto waa salaamaya salaanka gadaal waxaan maanta idinla wadaagayaa farxad weyn oo taariikhi ah kadib markii 54 sano kadib Soomaaliya ay ku biirtay golaha qaramada midoobay ee amniga UN Security Council-ka loo yaqaano 54 sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonnay maanta ayaan mar kale xubin ka noqonnay taasi waxay maanta oo ay bishii January tahay 2 taasi waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya hore ugu socoto taasi waxay tilmaamaysaa ammaanada Soomaaliya lagu aamini karo go'aanada caalamiga ah inay qayb ka qaadato taasi waxa lagu aamini karaa Soomaaliya in ay si mas'uuliyadi ku jirto ay uga hadlayso qadiyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxaan ku raada qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba sidaas daraadeed ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo haybad iyo farxad ayay u tahay maanta inaan dib ugu soo noqonnay 54 sano ka hor meeshii aan joognay ayadoo dalal badan ay laba jeer saddex jeer inta badan ay ku soo laabteen laakiin farxaddaas iyo reereyntaas iyo haybadaas waxaa la socota mas'uuliyad aad iyo aad u ballaaran oo naga saaran danaha caalamka iyo ummadaha caalamka oo dhan guud ahaan iyo danaha ummadda Soomaaliyeed iyo ummadaha aan wax la wadaagno ee caalamka ka tirsan waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa muxuu ahay diblomaasiyiinteena fadhiya qaramada midoobay xilliyada laga hadlayo arrimaha caalamiga ah si khaas ah qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ajandihiisa ururka jaamacadda Carabta ajandaheeda iyo ururka midowga Islaamka ajandihiisa sidaas oo kale waxaan diiradda si xoog leh u saari doonaa cid kasta oo caalamka joogta ee tirsanaysa inay dulman tahay ayaan saari doonaa inaan garab istaagno codkeennana aan maxaanku ugu heelino qadiyadoodana aan fagaaraha aan dhex geyno kana hadalno una muxuu ahay dadaalno intii karaankeenna ah in xanuunka iyo dhibaatooyinkaas dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed duruufo adag soo mareen waan garanaynaa duruufaha adag waxay yihiin waan garanaynaa colaaddu waxay tahay nabadaan raadinaynaa waan garanaynaa abaaraha iyo maxaan ku raada baahida iyo maxaan ku raada faqriga dhibaatada uu leeyahay garanaynaa horumar iyo barwaaqeyn caalamku sidii ummadaha caalamku sidii u gaari lahaayeen ayaan diiradda saari doonaa oo aan ka shaqeyn doonaa waa mas'uuliyad caalami ah oo aan rabno inaan gudano ma garab siin doono dulmi nooc kasta uu yahay iyo mustawa kasta uu yahayba ma garab siin doono in dadka qaarkiis lagu xadgudbo ama la dulmiyo waxaan garab siin doonaa kuwa xaqoodu maqan yahay kuwa dulmiga haysto kuwa codkoodu gaabtay ee u baahan in codkooda kor loogu qaado ayaan maxaan ku raada codkooda kor u qaadi doonaa oo aan baahi doonaa hadii alla yiraahdo inta mees joogno waxaan sidoo kale dowladda Soomaaliya ay ballan qaaday ay committed ku tahay ama ay ballan qaadaysaa inaan la shaqeyno xubnaha ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay guud ahaan 15 xubnood iyo gaar ahaan intii markaas shaqo gaar ah ay naga dhaxaysay intaba Soomaaliya waxay noqon doontaa cod u taagan nabadda cod u taagan horumarka cod u taagan hor istaagida dulmiga cod u taagan hor istaagida cadaalad darrada caalamka ka jirta mashaakilaad waaweyn oo Soomaaliya ka horeeyay kana gun weyn ayaa caalamka ka taagan laakiin ra'yigeena saxda ah ee aan u aragno inuu kii saxda ah yahay ayaan markasta anagoo la gabanin iyaan dhihi doonaa shucuubta caalamka ee dhibaataysan iyo qadiyadaha caalamiga ah ee gobolada caalamka qaybo kamid ah ka jira ayaan muxuu ahay ra'yi cad iyaan ka qabi doonaa oo ku taageeri doonaa kulana safad doonaa inta nala qabta ra'yigaas cadaaladda iyo nabadda iyo horumarka ka shaqeynayo sidaas daraadeed ummadda Soomaaliyeed haybad iyo sharaf iyo karaamay u tahay inay codkaas yeelato mas'uuliyad weyn way saaran tahay inay codkaas yeelato waxa rabaa dadkeenu inay ku qancaan dalkaani shalay meesha uu joogo ma joogo ilaahay idinkiis maanta meesha uu joogana berri ma sii joogaayo wadan soconnaa hayaanan ku soconnaa yaa nala mashquulin yaa nalaga leexinin wadada horumarka waxaa kaloo farxad aad iyo aad u weyn ah oo aan rabaa maanta fursaddan inaan uga faa'iidaysto oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaago dhammaan wixii qaaraan ahaa ee nagu ururay
صدني أفرت السنة اللي صار دافنا لقولها جمعية قرمها كده حيث دولة فدرالك الصومالية ويبحثي ما هذه هكا قارتو دتك الصوماليات جودهان u istaagay inay waxaasi ay iska bixiyaan qaaramaadkaasna muxuu garab istaag haday yihiin cashuur bixiye iyo haduu yahay mid deeq kala bixiye intaba iyo haday tahay maamulada maxaan ku raadayay dalka ka jira qaybo badan oo kamid ah oo ka qayb qaatay inaan maxaan ku raadayay deymanka noocaas iyo suurtagal ma aha inaan dhahno jamciyadda qurumaha ka dhacayso golaheeda ammaankan ka midnahay qaaramaadna waana lagu sii leeyahay inaan dhahno suurtagal ma ay ahayn waan bixinay kuwo kale oo badan oo 34 sano nagu ururayna qaarna waa bixinay qaarna waa sii bixin doona hadii la sidaas daraadeed Soomaaliya waxay maanta fadhidaa miiska jamciyadda qurumaha ka dhacaysa miiska caalamka looga taliyo ee UN Security Council-ka ayadoo bog cad wadata ceebaal iyo cambaareen hore aanan u qabin deyman aan lagu lahayn cunaqabataynadii iyo wixii dhibaatooyinkii saarnaa iyo deymankii wixii dhan na ka soo madax banaanaatay iyo u taagantay caalamku maanta marka rajo badan ayuu nagu xirayaa wax badan ayaana laga filayaa walaalayaal inaan la nimaado ay tahay waxaana laga filayaa badankoodu waa wax annaga Soomaali hadaan nagu xiran dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal caalamku wuxuu naga filayaa argagixisada dalka inaan ka xoreyno oo Soomaaliya dal xor ah oo nabad ah oo ka madax banaan argagixisada caalamiga ah inaan ka dhigno ayuu caalamku naga filayaa aan u istaagna dhamaanteen caalamku wuxuu naga filayaa dawlad casri ah oo dimuqraadi ah inaan noqono naga filayaa aan u istaagno nidaamka casriga ee dimuqraadiyadda iyo maxaa xorriyadda ku salaysan maantaan bilaabaynaa sidoo kale 56 sano kadib aan rabnaa maanta inaan qof iyo cod dalkeena aan gelino 54 sano waxaan ka soo gudubnay inaan mar kale masraxa caalamiga soo istaagno sidoo kale 56 sano ka bacdi waxaan rabnaa inaan soo istaagno ayadana masraxa caalamiga ee dimuqraadiyadda iyo madax banaanida iyo xorriyadda iyo dawladaha caalamka sida u dhaqma walaalayaal dadka Soomaaliyeed dad macna leh sharaf la qiimo leh Ilaahay u gargaaray oo adduunyada meel fiican u ka dajiyay khayraad badan oo sii u dhibtoon siyaasadda daraadeed inaan fahamno ayaan u baahnaa walaalayaal siyaasadda waa hagaajinaynaa dawladnimadan hagaajinaynaa adduunyada sida u dhaqantaan u dhaqmaynaa adduunyada sida u nooshaan u noolaanaynaa dawlado badan maanta dawlado badan oo aan burbur ka dhicin dagaal sokeeye aanan gelin ayaan ka macno badannahay ka awood badannahay taasina Ilaahay mahad ha ka gaarto ka sokowna shacabka Soomaaliyeed mahad ha ka gaarto meel kasta ay joogaan in yara noo dhiman inta yara noo dhiman aan dhameystirno dalka aan ka kicino cadawga ku habsaday ee 18 sano hadda sii galayso korka ku haysta ee dadka Soomaaliyeed sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo wixii awood ay lahaayeen oo dhan dhulka galiyay ee maraga ku hayo ee dabarka ku hayo ee meesha maanta la joogo inuu hayo iyo kuwa yaryar ee wax magaratada ah ee aanan garanin hadallada ay ku hadaaqayaan iyo mowqifta ay qaadanayaan in ay kuwaas ay u gargaarayso ee shacab weynaha Soomaaliyeed ee sharafta badan aan u gargaarin codkeena aan mideyno xoolaheena aan mideyno xooggeena aan mideyno siyaasadeena aan mideyno dalka cadowga shabaabna waa ka kicinaynaa Ilaahay idinkiis in badanna waa ka soo kicinay inta dhimanna waa dhameystiraynaa Ilaahay idinkiis xoog iyo xeelad wixii aan isticmaalnaba dalka dawlad la yaqaano adduunyadu ay fahmi karto ayaa ka hana qaadaysa hadii aan leeyahay sanadaha soo socda iyo awoodo soo socda walaalayaal dad socda dadaalaya wax dhisaya meel inay ka hayaamaan meel kale u hayaamaan rabahay dhibaato waa dhacay khalad waa dhaca tarantura waa dhacay meel godaho lagu kufo way imaanaysaa qodax dadka muddo way imaanay halaqi way soo baxayaan intaas oo dhan waxa leh socodka iyo hayaankaada waxaan khaldamin waa Ilaahay annaga dhan waa khaldamayna laakiin khaladkeena wax baan ka baranaynaa waana ka soo baranay khaladkeena wax badan oo kamid ah soo baranay aan rabaa hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo Soomaaliya maanta waxay taagan tahay waddo isgoys ah waxaan qaadaynaa waddadii noo horseedaysay himilooyinka shacab ee aan leenahay himilooyinkaasoo ah dawlad dimuqraadi ah dal nabad ah barwaaqana ah oo ay ku noolaadaan jiilasha soo socda nin orod ku roon iyo nin aayad ku roon
alla yaa awrti soomaaliya waxaan noo ballana dalku aan shabaab ku xureyno iyo dowlad dimuqraadi oo aan dhisno aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum mar kale hambalyaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu